Waxaan wanaagsan daawadayaal gabi ahaantiinba waxaad ku soo dhawaataan warar aynu ku eegayno xaaladihii ugu dambeeyay ee dagaalada xooggan ee xilligan ka soconaya deegaano ka mid ah gobolada ee dalka sida Galgaduud, Hiiraan, Bay iyo gobolka Gedo ee khasaaraha ka dhashay dagaaladaasi ka kala socda gobolada dalka iyo sidoo kale deegaano hor leh oo lala wareegay ayaan kula wadaagi doonaa daqiiqadaha soo aadan daawade balse marka hore daawade waxaan ka codsanayaa inaad kanalkan subscribe taabato like dhahdo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada mar waliba waxaan u taaganahay soo gudbinta xog xaqiiqda ku saleysan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca guud ahaan dalka iyo sidoo kale dibadda wararkii ugu dambeeyay ee aan ka helayna dagaalada ee ka socda gobolada dalka ayaa sheegaya in howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka ay la wareegeen gacan ku haynta tuulooyin badan oo ka mid ah gobolada ee Hiiraan, Bay iyo sidoo kale Galgaduud iyo gobolka Gedo oo xilligan aan idin hadlayo daawade uu ka soconayo dagaalo haddaba dagaalka xooggiisa ayaa xilligan waxa uu ka socdaa gobolka Bay oo deegaanadii ugu badnaa xilligan lagala wareegay ururka al-shabaab ciidamada xoogga dalka ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa uu ku dhaxmaray iyaga iyo kooxda al-shabaab dagaal aad u xooggan ee deegaano ka tirsan gobolka Bay waxaana ay ciidamada dawladda ee kala wareegeen deegaano aad u badan oo ka mid ah gobolka Bay waxaana ay kala yihiin deegaanka loo yaqaan Saydheelow iyo sidoo kale Buulo Jadiid, Mataani, Uusli, Busley waxaana ay deegaanadaasi dhammaantood ka tirsan yihiin gobolka Bay oo uu saaka dagaalkii ugu qaraaraa ku dhaxmarayo ilaa iyo xilligan aan idin hadlayo daawade ciidamada dawladda oo garab ka helaya dadka deegaanka oo si weyn dagaalkan qayb uga ah iyo sidoo kale kooxda al-shabaab sidoo kale gobolka Hiiraan ayuu weli ka soconayaa qaybo ka tirsan dagaalkan u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo sidoo kale ururka al-shabaab waxaana deegaanada cusub ee al-shabaab lagala wareegay 24 saac ee la soo dhaafay waxa kamid ah waa deegaanka Muqokuri iyo Tardo oo ahaa laba deegaan oo muhiim ah waliba deegaanka loo yaqaan Tardo waxa uu ahaa marin muhiim oo si weyn u isticmaalayeen kooxda al-shabaab kaasi oo si weyn isugu xirayay kooxaha ka yimaada dhanka iyo gobolada Bay, Bakool iyo sidoo kale deegaanada Jubbooyinka waxaana xilligan si toos ah u jarmaya ayaa la yiri marinkii ama isu socodkii ay kooxdu ku heli lahayd gobolada kale ee kaga imaanaya gurmadka haddaba sidoo kale deegaanada kale ee ku yaala gobolka Hiiraan ee 24 saac ee ugu dambeeyay la qabtay waxa kamid ah deegaanka loo yaqaan Moore Eri iyo Gumare iyo Qooxle oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa saacadihii ugu dambeeyay ee lagala wareegay ururka ama kooxda al-shabaab gobolka Galgaduud ayuu sidoo kale dagaalkan xooggiisu ka bilowday isaga oo maalinimadii shalay ahayd dagaalkii ugu xoogganaa lagu qaaday waxaana uu ka bilowday ama uu ka socdaa 5 jihad dagaal ahaa ayaa shalay ku bilowday waxaana kooxda al-shabaab deegaanada laga qabsaday gobolka Galgaduud ay ka mid yihiin Meegaag, Dhuub, Dhisaqo, Dhuumoodle, Aboorey, Calimeyd, Dawacaxun ayaa lagala wareegay sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka Bay ayaan sidoo kale lagala wareegay oo horle oo xilliganba la soo sheegayo in lagala wareegay waxaana kamid ah Xaawo Dhaysile iyo Boorama Karnooy iyo Dawudow oo ahaa deegaano ururka al-shabaab ay gacan ku hayntooda muddo gacanta ku hayeen balse ugu dambeyn lagala wareegay oo xilligan waxa fariisimo ay u tahay oo gacanta ku haya ciidamada dawladda sidoo kale saraakiisha dawladda ayaa waxay sheegeen in al-shabaab laga qabsaday deegaano ay ka mid yihiin laba dulle ciidamada xoogga dalka iyo kuwa xoreynta deegaanada bariga gobolka Galgaduud
ayaa gelinka dambe ee shalay si nabdoon waxay kula wareegeen deegaanka laba dule oo in ka yar 16 kiiloomitir u jira magaalada ceel la helay oo gobolka Galgaduud ka tirsan. waxaana lagu yiri qoraal ka soo baxay ciidanka xoogga dalka iyo howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda Soomaaliya ayaa looga xoreeyay deegaano tobanaan ka badan tani markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu iclaamiyay dagaalkan ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab kaasi oo ku bilowday kacdoon ay si weyn ugu kaceen dadka deegaanka oo si weyn dagaalkan qayb xoogan uga lahaa oo lixaad leh. waxaana xoogiisu uu dagaalku ka bilowday gobolada dhexe gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Galgaduud oo dagaalku guulo waaweyn laga sheeganayo. waxaana ugu weyn gobolka Hiiraan oo deegaanadii ugu badnaa lagala wareegay. waxaana kamid ahaa toddobaadkan deegaanadii ugu xooganaa ee lagala wareegay deegaanka Booco oo ahaa marinkii ugu weynaa ama xarun ay ugu taalay maxkamadii ugu weyneed ee gobolada dhexe iyo sidoo kale deegaanka kale ee loo yaqaanay Sooman oo ahaa mid si weyn muhiim ugu ahaa iyo Tardo iyo Aboorey. waana deegaano si weyn ay u haysteen. Galgaduud ay sidoo kale guulahan kor ku soo xusnay laga gaaray gobolka Gado. waxaa xilligan ka soconaya dagaalo deegaano kamid ah gobolkaasi oo dagaalku waxa uu bilowday maalinimadii shalay ahayd iyadoo ay horkacayaan xildhibaano kamid ah dowladda federaalka iyo dadka deegaanka oo go'aan ku gaaray in ay dib ula wareegaan deegaano horay gacanta al-shabaab u galay balse xilligan qaarkood ay dowladdu gacanta ku sii dhigayso deegaano horle oo kamid ah gobolka Gado oo ay muddo haysteen ururka al-shabaab. daawada wixii xog ay ku soo kordha dagaaladan ka soconaya dalka deegaano kamid ah gobolada dalka ayaan mar waliba ku soo gudbin doonaa saacad wixii ku soo kordha deegaanada lala wareegay qasaaraha iyo sidoo kale xogtii ugu dambeysay. balse daawade waxaan marka hore ka codsanayaa inaad kanaalkeena subscribe taabato like dhahdo muuqaalkan si uu meel dheer u sii gaaro una share gareyso saaxiibadaada kala duwan kugu weheliya baraha bulshada si mar waliba aan kugu soo gudbino xogtii ugu dambeysay dalka iyo dibadda. waan isleenahay runtii waxa ay noqon kartaa mid wax weyn ka bedesha dadka sida weyn ugu dhunduleela siyaasadda dalka iyo sidoo kale xaaladaha amni xilligan ka jira dalka guud ahaan. aad baad u mahadsan tahay daawade. mar waliba la socodka iyo daawashada muuqaaladeena waxay nooga dhigan tahay dhiirigelin weyn oo nooga imaanaysa dhankaaga.